xildhibaane waxaa jira hadal ka soo yeedhay wasiirkii xaabsade oo iminka hadda ku sugan Puntland oo sheegaya in dawladani Somaliland ay qarka u saaran tahay inay burburto khilaaf ka dhaxeeyo mas'uuliyiinta hawshaasi aad maxaad ka jawaabaysaa yani waa habaar baan u malaynayaa taas laakiin dawladda saaqleeyayna halkan kama jirta dawlad Somaliland la yiraahdo la wada leeyahay baa jirta odaygu de maalintii Puntland hadduu ka hadlayay Puntland waa 3 gobol dadkii deegaanka abadankiisuna waa ka tashaday waxaan ku rajaynayaa inuu 18 May ee dambe isagoo hadalka uu maanta leeyahay hadal ka bedelan oo hadaladii markuu halkan joogo uu oran jiray adka inuu sanadka dambe inala joogi doono odaygu isagoo dawlad Somaliland ba halkan ka jirta loo munaasabadeen inagala soo qayb gali doono marka de hadalka uu leeyahay wax ni weyn ku hadlama waa hadal runtii shacbiga Somaliland oo dhan ka raali gelinayno waa hadalan waayeel inuu ka soo baxo loo baahnayn odaygu cadhow nagaga maqnaayo de maanaan moodayn inuu isdhiibay insha Allah waxaan rajaynayaa 18 May inuu si fiican iyo xaqiiqda dhabta halkan ka jirta uga hadli doono halkan xildhibaan magacaygu waa Peter Kosaaro started waxa taayafayeenka aqalka golaha guurtida imikana xaalad aad u adag baa ka taagan gobolkii Saaxil waxma badan la isku haysto golahan arintaas maxaa leeyahay golihii middo imika waan ka maqnaa 2 bilood bari baan ku maqnaa arinta berberana information badan kama hayo laakiin 2 fariimood u mandiraya mid xukuumaddan u diraya waxaan leeyahay arinta dejiya shacbigeena yaa la inaga ka haysanin mashruucan berbera waa mashruuc weyn mashaariicda waaweyn ee madaxweynuhu waday ka mid yihiin sida kan imika aanu ka nimiyeen nabadeynta gobolada bari wadada Ceergaabo biyaha Hargeysa dekada berbera 4 mashruuc ee waaweyn waa mashaariicda uu madaxweynuhu ku fikirayo xukuumadda waxaan leeyahay dejiya waayeelnimo muujiya khilaafka yar ee soo kala dhex galay hala dejiyo shacbiga reer berberana waxaan leeyahay miidiyaha habadsanina aqbala xukuumaddu inay idinla hadasho soo dhaweeya waxay u soo kordhay berberi waa wax waddanka oo dhan u soo kordhay marka waxay u baahan tahay mashruucan in deganaansho lagu dayo dawladuna ay deganaansho ku wado shacbiga reer berberana waxa la isdejiya idinkoo degan hadla tabashadiina sheegta laakiin iska daaya tifiyada badan baan leeyahay iyagana intaasaan u diray way xildhibaan waxa jiray in وين هذا القصة بحي وزيرك بيها أو شيء إن ما مسؤوليتها خاتمة يسومالي وهالشيء أما هذا القصة مقالة تساوي حرونة إثيوبيا إن أرنتها صحيح وقال محكمة أنا أقول شركي بانكرنمي أنتي ديجانهان أنا سولي حيسمة إيو سناك ديجانين بانك هذا الله أنت كلام غن أما خاتمها هذين أما سوماليها هذين أما بلدانها هذين waxaan ugu baaqaynaa dhammaantood inay gogasha madaxweynuhu dhigay sidaan uga jawaabnay si leeg uga jawaabaan waan rajaynaynaa inay imaadaan hadday khaatumo yihiin hadday Puntland yihiin iyo hadday Soomaaliya yihiin inay nagu daydaan oo sidii aan uga jawaabnay dadka deegaanada aan ka nimay imika degan inay uga jawaabi doonaan wax waliba bilowbay leeyihiin laakiin waa laga yaabaa wasiirku inuu iga warbaday yahay hadduu leeyahay Addis Ababa la dhigay laakiin haddii Israa'iil la dhigo waxaan leeyahay aqbala gogasha soo dhawaada waan soo dhaweynaynaa dhamaashiyeena ku jira idina waa soo daasheen anana waynu isla daalay aan heshiino waxa weey aan wada hadal waxa weey aan heshiino sidii aan u heshiinay xukuumadda qoladeeda nugaasha taala qoladiina hawdkuna u heshiiyaan leenahay oo la heshiiyay xukuumadda niman hadlay oo ka hadlay buuxa Puntland oo yiri sida Axmed u yimaada laascaanood ama jiida hore ee ciidanka soo yimaada kaasoo waa isdin iska hamabari waxaan leeyahay faanoole farikama wada faanoole farikama madaxweynuhu isagaa halkaan nagu haya waxaanu tagaynaa jiida hore waxaanu gaaraynaa yoocada yaanu gaaraynaa bandhigii wax tuurtuurayo ninka wax tuurtuurayo annaga waa nala hor fadhiyaaye marka dhagax yar nagu soo tuurto ballan waxaan ku qaadaynaa inaanu adiga ku dhaafnaa laakiin waxaan leenahay nabadda nin waliba waa ku fadhiyaa
nin walbana waa u dan nin walba waa u wanaagsan tahay shalaynu laascaanood isku qabannay saacad iskuma aynaan jirin saacad iskuma aynaan jirin ee halkaasaa noogu qabtee weli ka dabayman lahaynaa waxaan leeyahay dalka Soomaaliland xad buu leeyahay horena wuu u lahaa weligiina wuu lahaa haddana wuu yeelan doonaa intaasaa taana kaga baxaya wasalaamu calaykum aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu caawa halkaa ugu ciidayno 18 guuradii waa waxaan laynala lahayn oo dadka kale aanay haysan haddeerto ilaahayna iyagana ha hagaajiye Hargeysa muran baa ka taagan oo way haystaan axsaabtii oo qaarkood waxayba ku hadaaqayaan sida internetka lagu qoray in muxuu ahaa Hargeysa ay ka mid tahay gobollada Soomaaliya oo aanay ahayn mid go'day waan ku mahadinayaa iyagana taa hadday muxuu ahaa aqligoodii soo noqday oo muxuu ahaa ay garteen inay Soomaaliya ka mid yihiin Soomaaliya horta sideedaba kala go'ay mayso dadkuna kala maarmi maayo meel walba la joogana nin waliba waa joogaa reer Puntland baa Hargeysa jooga oo reer Hargeysa halka jooga oo reer Xamar baa halka jooga oo reer Boorama halka joogta oo waxa jooga reer Baydhaba meel kasta eego maanta Puntland cid aan joogin ma jirto marka horta wuu hambalyeynaya Puntland inay noqoto hooyadii Soomaaliya waxay jirta dhibaato taagan oo muddo badan hadda soo socotay Sool iyo Sanaag iyo Cayni waa Puntland bay ka tirsan yihiin haddana waxaa haysta ciidamo aan u dhalan Puntland oo aan ahayn baa haysta waxaan leeyahay taa bal dib aan isugu noqono sidii muxuu ahaa aynu muxuu ahaa arrintaa wax uga qaban lahayn tashigeed halaysaga yimaado oo hal la wada tashado oo talab midaysan aan ku qaadno arrintaas uma taallo muxuu ahaa beelaha halkaa qura degan beelaha degan uma taalle waa mid Puntland oo dhan u taalla Puntland beelahaas waxbay ka dhiseen waxbay ka sameeyeen way ku dagaalameen dhiigooda ku daatay waxay ka galeen colaad in Puntland taagnaato tii un baa la sugayaa oo laga sugayaa beelaha kan muxuu ahaa hadda Puntland waxaan leeyahay markaa si wanaagsan arrintaas ha loo wada hadlo oo dib ha loogu xisaabtamo oo sidii aynu u soo celin lahayn